dawdayaal warbixin ayaan idiin haynaa ka duwan wararkii hore aad soo daawateen warbixintaasi waxay ku aadan tahay magaalo aanay dadku ku dhex dhiman karin sidoo kalena aan lagu dhex aasi karin iyo dalka ay ku taalo wariyayga Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal ee warbixintaasi isha soo mariyay oo inoo faahfaahinaya magaalada Lagu Aasi ee dalka Norway oo ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2,000 oo qof ayaa magaalo ka duwan magaalooyinka kale ee dalkaasi waa jasiirad ku taala bartamaha dalka Norway oo qofkii xanuunsada uu ku qasban yahay inuu magaalada ka baxo ama haddii uu ku dhinto aan lagu aasi karin magaaladaasi dadka naftu qabata ayaa loo diraa magaalooyinka kale ee dalka Norway si ay ugu geeriyoodaan halkaasi waxaana jira sharci ah haddii qofku uu ku dhinto magaalada inaan lagu aasi karin isla magaalada sharcigan ayaa magaaladaasi ka dhaqan galay in ka badan 80 sano waxaana sanadkii 1918 albaabada la iskugu dhuftay xabaalihii magaaladaasi Lagu Aasi waa magaalo aad u qabow inteeda badanna baraf ah ayaa mararka qaar waxa dhacda inuu qabowgu gaaro -50 wax qabow xad dhaaf ah sanadkii 1918 waxa dunida ka dilaacay hargab lagu magacaabay Spanish flu kaas oo ku dhacay dad lagu qiyaasay 500 milyan oo qof meelaha uu ka dilaacay xanuunkaasi ayaa waxa ka mid ahayd magaalada Lagu Aasi oo dad gaadhaya 11,000 oo qof ay ku dhinteen xanuunkaasi dadkaasi oo lagu aasay isla magaaladaasi hase yeeshee qabowga magaaladaasi oo ah mid aad u daran ayaa waxa uu keenay dadkii u geeriyooday xanuunkaasi ee lagu aasay magaalada uusan isbedelin jirkoodu taasoo khibrada caafimaadku ay sheegtay inay jirto halis ah in xanuunkaasi mar kale ku faafo magaaladaasi dadkii u dhintay ee lagu aasay magaaladaasina ay faafin karaan kuwaas oo la sheegay in aanu jirkoodu waxba iska bedelin Dr. Duncan oo ka tirsan jaamacadda Windsor iyo kooxaha uu hogaaminayay ayaa tagay magaaladaasi si ay wax uga soo ogaadaan waxay tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunkaasi oo lagu aasay magaaladaasi waxaana ogaadeen oo ay sheegeen in aanu xanuunka Spanish flu oo jirkiisa ku jiro oo aanu ka bixin Mayer oo ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee dalka Norway oo hore u sharaxay sababta aan dadkaasi loogu aasi karin magaalada ayaa yidhi sababta dhulkan mar walba barafka aan dadka loogu aasi karin ayaa waxay tahay in dadku marka ay dhintaan aanu jirkoodu baabi'i karin ama isbedeli karin sidoo kalena barafku waxa uu soo saarayaa meydka dadka lagu aasay dhulka waxa uu sidoo kale sheegay in barafku sii nooleyn karo cudurka uu qofku dhintay taasina ay keeni karto in dadka deegaankaasi arrintan ay saraakiisha dawladda Norway ee magaalada Lagu Aasi ay ku sheegeen haddii aan la dhaqan gelin ay horseedi lahayd dhibaato caafimaad oo hor leh khibrada caafimaadku waxay sidoo kale sheegeen xanuunka ay u dhinteen dadka lagu aasay magaaladan ay si sahlan u faafi karto mas'uuliyiinta dawladdu waxay sidoo kale sheegeen haddii dadka deegaanku ay taabtaan meydadka ay si sahlan u qaadi karaan fayraska Spanish flu sida fayraska corona ugu faafay dalkaasi xabaalaha magaalada Lagu Aasi ayaa kuwa aanay dadka deegaanku ku tashan hargabka Spanish flu ayaa la aaminsan yahay in caalamka ka dilay in ka badan 50 milyan oo qof markasta meel kasta iyo waqti kasta Baddacas24TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan Baddacas24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Baddacas24TV waa weelka waxa aad tabayso